ولا ليانو دكنا أنا سندساي أكورا دساي أولا دساي دسا كلك دسا ورده إلى أرضهم بيشوا الكاويني واضح أنا أريك لنا والها وايه قران دوني أنا ريبيو كوري هي وكوري ما كان ضاله ورقولي ذا حنقول شيء دوري صدقني سنة بقول شيء تبرك وانت خلقوا صار نقضي إلى برجع وسكت شيء بقول يبليه هذا كوري هاوني بليه سكمت سادو هاوني بليه هقول يا ما يبي أما سادو يبي تبرد كوجي تجا دقا يبي ور خاينو جنيو عرض ور لينه كبا ور كله صار ما صار ور هذا كوجي تقولي يبي هذا عليه ورد الدولة دي واحد قال لي صوابح هذا عدالة ولا تقال ورد الكلام أنا كنت شلون كان كوجي سجى يبي أنا كاربي هذا ور كله صار ور كان نوجي ور كان داور نادي ور الله صار هذا أرسنال يلي ليفربول تونا الله صار ور كعالم في نوجي ور كان داور ور كان الله صار ور بعد مش أنا مش أبوك الزبون أنا ور بعد داور نايك بدي نايو حاني كدايو هذا السفر سبيشال صدق يا نوريا دون من ور كان دون عالم خصم هر فيسبوك قال الفيسبوك الناس تقلع wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi ayaa go'aamada ka soo saaray ku tagrifalka dhulka hantida guud ee ka dhaxeeya ummadda Soomaaliland waxaana uu wasiirku shacabka u soo jeediyay inay ilaaliyaan dhulka danta guud mid dhisme iyo mid dhul bannaan intaba isagoo wasiirku sheegay inaanay aqbalaynin cid si gaara u sheegata dhulkaasi lagana hirgelin doono ayuu yidhi arrimaha dadka ka dhaxeeya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inay dhawaan bilaabayaan diiwaangelinta dhulka iyo dhismayaasha danta guud wasiirku waxa uu ku wargeliyay cid kasto ay khusayso inaan la qorsheyn karin dhul dan guud oo aanay wasaaraddu ogeyn isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo hawshaasi isku dayda waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya haddaanu nahay wasaaradda howlaha guud waxaanu shacabka reer Soomaaliland u sheegaynaa in ay ilaaliyaan oo aanay ku tagrifalin hantida dawladda hantidaas oo ummadda ka dhaxaysa taasoo ah mid dhisme mid dhul danguuda waxaanu la socodsiinaynaa in ayan ahayn sida loo bililaqaystay iyo sida loogu tagrifalay inayan ahayn wax suuragal ah inayan ahayn wax ummadda dan u ah inayan ahayn wax dawladda dan u ah inayan ahayn wax shacabka Soomaaliland dan u ah taasoo ah wixii hanti dawladdu leedahay ee dhul ah ee dhismo ah ee ummadda ka dhaxeeya inaan cid gaar ah ku tagrifali karin la socodsiinaynaa ku codsanaynaa mayrada dalka in dhulka danta guuda wixii loo yiri dan guud uu yahay inuu ummadda ka dhaxeeyo in masaajid laga dhiso in iskuul laga dhiso in xafiisyo dawladeed laga dhiso in xabaalo laga dhigo in masaajid laga dhiso sidaan sheegay taas oo macnaheedu yahay dhulka marka la leeyahay dan guud weeye ku tagrifali karta oo gaarihi aanay jirin dhawaan waxaanu bilaabi doonaa insha Allah bismillaahi kariim diiwaangelin aanu ku diiwaangelino hantida dadka ka dhaxaysa ee dawladda ee shacabku leeyahay ee ummadda ka dhaxeeya dhulaan goobjoog ka ahayn lama qorsheyn karo dhulkan beeraha lagu sheegay ee qorfaha ah ee aan waxba ka samaysnayn ee beeraha lagu sheego waxaanan ogeyn lama qorsheyn karo waxaanu mas-uul ka nahay dhismayaasha dawladda waxaanu mas-uul ka nahay wax allaale wixii ummadda Soomaaliland hanti ka dhaxeeya ee dhisma ah ee hanti maguurta ah ee dhul bannaan oo dan guud ah waxaa mas-uul rasmiya ka ah wasaaradda howlaha guud la'aantayna cid qorsheyn karta iyo cid dhalangadigi karta iyo cid wax ka qaban karta ciddii wasaaradda howlaha guud oo aan war ka hayn ku tagrifasha dhalangadida dhisata
si kale u isticmaasha waxay ku caddaanayaan inay yihiin dembiilayaal ummadda waxyeello u geystay sharcigan la horkeeni doono maya adeerkan wuxuu ka hadlayaa haddaan gartay dhulka bannaan buu ka hadlaya maxaa ka dhisan buu yidhi ma odhane ka baxo afkiisa ha ka been abuuran dhulka bannaan buu yidhi maryaane halka meesha wara baagtane war la iskama haye anigu waabaan iska tegayaade hawl yar baabaan leeya anigu qolaan la ballansanahay ma hadalka ninka baalka yaa ka baxaade gurigaad minka hawshaad galaysaa miyaa adaa iska daaya idinku warkayga ka baxa waayo orod waayo orod waayo orod imee wasiira idinku ila waxaan maanaya adiyaa waxaa mayaan intaasina naga soconay urwabay kululeeyiin uruskaa meel malayna hantida dadweyne ka hadlaya anu ma hanti dadweyne hayna hanti dadweyne dowladda u doona hanti dowladda ee gurigaa ku jirtaa hanti dowladeeda waa naga amsade adeer maynu nafka jifi kaaga jirnaa baa والله dowladda يقول هذه دولة أنا لو فات شوفك هذا أنا قاموس أنا أرد ميو واحد خاص عن مايا خاص عن مايا واحد صدق بقى كتير صدق ترى كتير بقول سفيقي كسارو يمكن دولة هوسة تبع دنت جود اللي هو كاسوا من هو سو قاعد مجالدي وقت المجالدي beertaydi mar haday baga alla nasiib wanaagsan alla maxaa ku taa laaya xaqad sula hadashay waxa isku hadlaya soo fadhiiso maxaad isku hadlaysaa waxa isku hadlaya waa tan deebaga beerteeni magaaladu soo gaadhi haye ilaahay waxba inoo dhibi haye waxa la igu leeyahay in suwar sarfeega ka saar haye yeeyma ka tagayaayo sarfeega dawladda hoose ayaa odhanaya nooga saar sarfeega kaash baa saal inoogu dul tirinaya beerti nasiibkaaga beerti oo dawladda hoose tagay soo magaalada soo gaadhi marka danta guud xaqad ka maraysa dhowta hadii dawladda aad ku darsatay oo tiraahay beerti sarfeen baa ka saaraya dhulkii danta guud baa laga goostay danta guud waa u goynaya wixii suurtagal هو معنا وحبي وضعان أما هذا لو تلوح لوه اسكليا مي وأنا أقول لهم وين بانه وحنا رأيه تنتجود إيوه كراعي يا نمر نعم ما هي راعي لأنه ينو قبل راعي وبلاوي وأنا أقول أوراني تنتجودنا يقصر حنا يكون بديننا اللي هو حنا لو سلام سووا ذي اختيار بيقولي أنت تجود ما تقول واحد دونا بكاكوس ما قولي ما وأنا إني في علم أكثر ديد وديدية ديد كولي وحلا يقولي كسر ونسفيك يا رجل أنت شاه ما كان عبو تولدي هذا قبرك يا ده سكايلاريو سكايلاريو ما وسكايلاريو يلا هو اسكري هذا نصيب كاو ما هذا ما في ايوه في عي انتين كسو تعبنا ودين wax badan ina soo gaadhay magaalada kabood baa way inta shaha marka lacab uma dawladda hoose la taga iyaga ka saaray sarfiig oo joomitira kugu soo daraya joomitira sal lacagta daba socota iskaylaari may لا شاهد عبد مايي اسكايلاري بانكو اسكايلاري هذا تخبا لا قاطي ما جرت لا يري aniga igu halaysa hawlaha imika inoo fiicnaadeen bashbashtiya barwaaqada inoo noqday waxa ku uri isكايلاري aniga ha isme meel nabad guriya dhisanaysa odayga hayga qaadin odayga alla waxa maxaan daba joog alla waxa maxaan ku rafaa alla waxa maxaan ayaan baa garay qodxi kugu muday ma la waxa qodxi iga bus hada tagay waa taa wixii la hagaajista waa yahay haye هاي دوال كان كوري كاي ما يفرع عيال ايه ما هو يا باي لا يسكت وكان السلام عليكم ويا بالورن خير خير بالورن خير والله في عنتها وتليفونك قميت بديش ايه سقي بس انت وهذا شلون هو سوق راعي وحدناي يحب حدنا واي يو وحدي يمبرها انا حداي هذاك دوريو حد والله يقول فريس والله مراد وين ما قولها ولا ما حد يقول هذا ما حد قال waxna war kula kale ma hayne warta gurigii aad ku jirtay yadiibis gurigii ha may way ibinaya ka wala wala ku sheego wada ha meel dawad baba laga baayaco lacag fara badan baa lagu baayaco waa baan u diin ma ibinaysa imka afarta ku baa lagu baayac wala dhigay waa lacag baris war haya lacag kale ma hayo beertii halkan wallahi ma garas beertaadi ya magaaladu soo gaadhi waaya sarfee baa laga saaraya haya waa luul saasa loogu dul tiray dadkii imika waxay sugayaan inta sarfeega laga saaray ma gubadkan gubi doonaa markaa maya gubadka maaha waa kaash baa dul yaala imika dawladda hoosan ku socda waa gar sarfeega laga saaray oo inaadaro guriga markaa maxaa tiri
afartan kun waa u diiday oo 40 kun horta dawladdan miyay kula hadashay miyaad maqashay hadalka maalmo dhaweyd baa la yidhi dawlad waxaa hadlaysa wasaare arrimaha guud arrimaha wasaaradda hawlaha guud iyo wax markaa dhulka bannaan iyo waxaasay ka hadlaysa adiga dhulka bannaan inaad waraaqo ma haysa horta waraaqa xaggee iyo qaar maxaad ku iibin waraaqa nooc ma adde iyo waraaqo guriga ah war wax ma kuu sheega horta dalkeenna waa taqa madi garanayn ma ku garanaya haddaa waraaqaa doonaysaa waa maxay dadkeen ma aha yurub baa dee laga isticmaalaa agreement iyo kala qorasho iyo waraaqo dadkeennan waxa weeye waxbay way isgaran waa qowl sharaf qowl sharafay waraaqo ma jiraan horta waraaqo ma jiraan anigu imika dawladda hoose aan ku socdaa waa qowl sharaf baa waa ka iibsanay dawladda hoose aan ku socdaa aadir ma maxaad tiri dawladda hoose aan ku socdaa hada waxaan doonayaa waa inaan dhalinyaro waradar waxaan doonayaa namnamlaha muxuu waa dhalinyaro waxaan doonayaa in sarfey ka saaro beer halkaas magaaladu soo gaadho aan leeyahay haye beerti haa dabadna sarfeyga ma ka baxay la kow laba saa lacagta ma garaysa maya waxaad kala saartaa dawladda hoose aan ku socdaayo beer maxaa isu keenay hawlaha guud baa la maraya marka hore hawlaha guud waa guri maaha waxa iyagu war guudkii beerti soo maaha waa beerti oo dhulkii soo gaadhay magaaladu maya dawladda hoose u tegi maysa marka hore hawlaha guud baa la maraya dabadna hadhowbaad idinkood dawladdii hoose iyo hawlihii guud ay israacaysa marka hawlaha guud maxaan ka doonaa dee waxaad ka doontaa sarfey bay ka saaraysa maya waa la nadaaminaya dhulkii baa la kala nadaaminaya wuu iska nadaamsan yahay may waa oodan yahay maya waxaas ma jirta ma kala nadaamsan war ingiriiskii buu haysa waraaqii ingiriis anigu war ninkan war lixdankii waan hayay waraaqa hayso waxaas ma qusayaan hawlaha guud dawladda hoosena maxay qabanaysaa markay wasaaradda hawlaha guud ay nadaamisay ee kala saarto dhulkan ayay iyaduna idin raacaysa markaa dan guud baa laga goostaaye dawladda hoose dan guud bay doonaysaa oo iyagaa iska biyabiyeysadii maya war waxaas waryaa sodeen ka weyna wax la biyabiyeysanaya ma jiraan haye ha sii waanin waxaan wasaaradda hawlaha guud aan la soo marin sharci adeer maaha siday odhanaya iyaguna danta guud waxa la samaynayaa masaajiddaa laga dhisayaa malcaamadaa laga dhisayaa baahiya bulshadu waxay u baahan tahay baa lagu qabanaya ayaa dhisaya dee wasaaradda hawlaha guud ma iyadaa ku shaqale iyadaa ku shaqale waxan dawladda hoose ma laba dan guud baan gooya dawladda hoosena waa anagoo dan guud bay doonaysaa dawladda hoose ma qusayso hawlaha guud haan waa la soo martay hawlaha guud markaad soo marto ayaa dawladda hoose u tagaysaa yaana wax iskaga gacan yahay goorma hawlaha guud ma soo birid waa ilaa anaga dawladda hoose aan ogeyn warta heedhe maanta wax maqlay waxba la diiwaan gelinay maxaa la gelinay anigu diiwaan gelinta dadkaan maqli jiray diiwaan gelinta ma dhulka la diiwaan maqlay dhulkii baa maanta waxa dadkii baa la diiwaan gelinay imika ala kulli xaal maxay dawladda hoose tag hama tagi wasaaradda hawlaha guud ku horee markaad ku horeyso miyaa la soo wada kaxaynaya maya waryaa soo raac baad leedahay soo raac hadhow process bay waxani maraysa waxan wax la iska cararayo maaha dhulkani waxan waa laga ma sharci cusub soo baxayba se waa sharcigii baa la hirgelinaya waa sharcigii dalka u yaala la hirgelinaya oo la raacaya horta anigu waxaan maqlayay sharciga la isbaraya war sharciga anagana lagu bilaabaya wakaas dee maya la isbaraya sharcigii baa la dadkii waa dhulka waa dadkii waa la diiwaan geliyay dhulkiina waa tan iyo daarihi iyo dadkii iyo dadkiiba waa la iyo dhulkiiba waa doorashaan gelin war danta guud waa mid danta guud iyagu bay ga doonayeen danta guud waa mid hawlaha guud baa ka wakiila ka mas'uula hadhow dawladda hoose waxaan maxaa kaa quseeya warday waa tuuntii anigu hadda waxaan leeyahay hawlaha guud maya sidii markaa inaan kuu sheegay warday meesha magaala maamusho maayar baa maamulo meesha waa magaalo toon balanki baa gaadhay maayarkan iyo dawladdan hoose iyo waxaan waa aasaasi iyagoo lagama maarmo meeshan waxa laga wadaa imika dee markaan caqligayga fakeray danta guud ma la jari jiray qaar si kale hadday doonto imika dawladdii hawlaha guud baa ka mas-uula wixii danta guuda oo iyadaa qorshaynaysa ilaa hadalka waanu kala dhigdhigayne ilaa hadalkii baanu kala dhigdhigayne inaad maad kala dhigdhig waxaa kaloo ay yidhaahdeen waa tanoo laleeyahay dhulka dawladda dee guryahan iyo waxan lama iibi karo lama dhala bedeli karo lama kala waad ku jiraysaa unbaa lagu leeyahay waad haynaysaa si ay dhulki dawladdii u lahaato oo imika dhulku dadka shacabkaabu gacantiisa ku jira kaagana ma ku jira marka kuwa la lahaanayo see u malaynaysa kolley aniga sidaa maaha waxbaa ka bedelan laakiinse waxay dhulka dawladda gacanta ku haynaysa kaaga ka iibsanay marka imika sarfeega ka saaray hawlaha guud tagay dawladda hoose kaaga ku dhisaa hufsiimo u baahan
وأنا سوفر أقل من كذا كذا كل سوفر ورد يقول وأقول قديم وروحت دولتي هراء دولتي هراء ورد أنا بقول قدام كقبلي أبسط أدير والله ما بلوكو يجاري ماي واي صح والله ما إنك أحسنت وحبات سكان يوم كذا غيركوا هذا ما حد عاي هذا هذا مين واحد بلي هذا نهي ما نقول سمي هذا روح أصلا من بدل سوهوس كل سايل جو هذا السلالم كقفل قاعد ملنا ملا يرب قفل هاي قريمة ما هذا قريسة ورياه ميل بان ولا تاج ميل بان ولا تاج ما فقدر ورياه روح هذا ما سوى دونيسا مركا ورياه ما سوى دونيسا ورا ميل قريسة ما وحاس ما ترى ميل قريسة وحا ولا بلما تنتقل قوامين ولا هذا لينو أنا وده ميزان شغله شوف ما تصور تنتقل قوامين يوم وانا قرك ورقه والله قط ورنيو مرت بلا ميل تاغنا يسو تاغ ورنو نغت اورن دغه تاغ واحد هو طلق فير يا قراي والله waxa yareen risq maana caaday انا risq maana caabatay orn dagad nagad qof yar ka meel wala mid ruux jeega xiran wala ma lama taagan laba ma si beerka ma kala daa gabigiisa ninka weyn ma xisho isla niyu waalay ninka dhulka guriga ka iibsanay hortiisa waxa ku jilay waxa soo doo uu waalay ma soo doo yaan siriyay ma sii garaac gabigiisa waxa الو السلام عليكم. عليكم السلام. ان ادر سو دنيسته ادن ماها هذا هو يسقي محوالد با ان ما يادر waxa weeyaan waa wasaaradda hawlaha guud ya bari waxa laga doonayaa xafiiska wasaaradda hawlaha guud ee gobolka waarba igu celi maxaa tahay bari waxa laga doonayaa xafiiska wasaaradda hawlaha guud ee gobolka kuma ka wasaaradda hawlaha guud maxay inagu falaysaa ee laga doonaysaade adeer hal xafiiska lagu sheegi doonaa bari baad imanaysaa insha Allah maxaa tihiin imika wasaaradda hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud xafiiskeeda ay ku leedahay magaalada bari subaxa kaalay 8 subaxnimo salaam calaykum salaam warahmatullah sidii waramaade adeer waa maasha Allah maqoladii iyo dhashayaati hadaleysta waadana hadaleysta waadan hadaleysta waadan oo naga ku yeedhay adeer waa yirma la fajacay maxay ugu yeedhay waligii maqoladan waxba iska magaalo soo gelin waxaan kugu yeedhay inaad la socoto mooye maalmaha ba wasaaradda hawlaha guud waxay diiwaangelin ku aadan hantida dowladda haye adiguna waxaad tahay dadka ku jira guryaha dowladda haye markaa waxaan kugu yeedhay inaan kula socodsiino in la diiwaangelinaya hantidaas oo guddada ay shacabku leeyihin weliba waxaan kugu wargelinayaa in hantida aad gacanta ku hayso aan waxba ka bedeli karin hadday noqoto midabkiisa hadday noqoto qalabkiisa iyo dhammaan qalabka guryaha sidoo kale waxaan ku sheegayaa in aanan iibin karin habayara oo ay kugu tahay ammaanaha gacanta ku haysaa waayo adeer wax makuu sheegaa adeer horta marka hore waa la isfahmaayey dowladdan dalka iminka haysata ee somalilan la yidhaahdo anigu guri ay leedahay kuma jiro dowladdii hore dhacday iyo xukuumaddii allah u naxariistay xaaji maxamed siyaad bare ayaa waddiyaa dhistay ayaan ku jiraayo berigii waddanka la soo galay baan qabsada 8 sannadood baan ku jiray kowge markaan adeerde maa qof kale ay moodeen anigu khaldaminaade xaaji daraysta oo adeer alfaano haye sidaad moodee mahaayo waxaad gacanta ku haysaa waa hanti shacab ummaddaana iskale shacabkeele waa hanti dowladada aad waxaad yeeli kartaa waan weliba kugu wargelinaya inaad iibin waxba aanad ka bedelin cidna aad ku wareegso haddii ma fahamta weliba shirkadaha dhismayaasha iyo arrimahaas wasaaradda hawsada awood ma laha inay la wareegaan waa insan ma fahamta adiga inta lagu dhiganayo hantidooda gacanta ku hayso way afduub horta miyaad afduubaysa miyaad waxbay weydiini maya laguma afduubaya haaska odhane waa 8 jirsanay gurigani waar guri carruurtii aan ku dhalay baa carruura leh guri dowladeed ma yahay
دولة دواتي بدأ حلبات دولة يسمونه الله سيدا دمودي بقى فهم بقى وحنو بانتي وانتي دولة ساسا ديالي سادانيستو وحوي يا حيوي أنا قلت دولة وحوها إذا ما تشوف هاي dalkan aad anagu fadqalano الله uma jeedo gurigan ugu caruurtii lagu dhalay baa caruuray adeer iga daa kibir adeer waxa diilaysa danaysto magacaagi ka muuqata waxa tahay indhaha taagtaagaysa anagu awaamir dawliya baan ku siinay hadii aad fulin weydo talaaba laga qaado warda dadkii wadanka qabsaday baanuna anaga xagaad noo mooysa dadka soo galooto walaalahaan way ku soo gaadhaysaa awaamirta dawliga inaad fulisaba kugu waajib waarada reedheesho wada wax kala ka dhici doona halkaas wax kala ka salaqlaydo ma dhacayana wax khayr la dhacaye orod وعيدا وحقا قدام دمستو علينو صفة شرعية بالغمرينية سيدا دون سنة أهنت لما نقنص واروح مكوش هذا اسمه خير أنا حال هو يبلس حال هو يبلس أنا نقول الله بالشرعية بالغمرينية واروح محمد وقال ولا ليالو دلكنا أنساني ديساي أكورا ديساي أولا ديساي ديسا كلك ديسا ولا ليالو دلكنا أنساني ديساي أكورا ديساي أولا ديسا كلك ديسا والله دنتو lagu dhaawacme walagu dhasho walo dhinto lagu dhaawacme walaalayaalo dhulka dhulkeena